magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay musharax u taagan xilka xildhibaannimo Professor Maxamed Macalin Xasan iyadoona soo dhaweyntiisa ay ka qayb qaateen siyaasiyiin wax garad iyo waliba ururada ka dhisan magaalada Kismaayo. ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay xildhibaano ka tirsan maamulka Jubbaland iyo waliba qaar ka tirsan siyaasiyiintii soo dhaweeyay musharaxa u taagan xilka xildhibaannimo Professor Maxamed Macalin Xasan. waxaan soo dhaweynaynaa musharaxa Sheekh Maxamed Macalin Xasan oo ah xildhibaan u taagan dawladda federaalka ee Soomaaliya. xildhibaankaasi beesha ballaaran ee hadda ku sugan airportka Kismaayo waxaan leenahay xildhibaan soo dhawow musharaxo soo dhawow gacmo furan dadkaagii aad iyo aad bay ku sugayeen. maanta dhan waxaa halka loo taagnaa waxgaradka siyaasiyiinta aqoon-yahanada ururada bulshada hooyooyinka waxay u taagan yihiin oo ay saakay u soo banaan baxaan soo dhaweyntaada. waxaan leenahay magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland gacmo furan ku soo dhawow. xilka aad ku socoto oo aad raadinayso mid culus weeye beeshuna ay u hanqabto inuu u qabto qof daacada. waxaan leenahay xildhibaane فليتفضل. Sheekh Maxamed Macalin Xasan waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan laab furan niyad furan iyo aqoon fiican oo annaga aan u leenahay Sheekh Maxamed inuu ku maamuli doono ummadda musharaxa u yahay cadaalad iyo sinaan iyo horumar iyo nabadgelyo intaba u horseedi doono ayaan ku soo dhaweynaynaa. waxaan garoonka diyaaradda ee Jubbaland ee magaalada Kismaayo ummadda Soomaaliyeed oo u soo banaan baxday niyadda ay u soo banaan baxeen waxa weeye niyad qaali ah oo aad iyo aad maartay qiimo badan u leh. runtii ummad Soomaaliyeed haddii ay kalsooni wax isku siiso kalsooni wanaagsan baan wax kugu siinay waa ku taabacsannahay waa ku ogolnahay xildhibaankii beesha howrarsame inaad noqoto ee federaalka Soomaaliya. ku soo dhawow Sheekh Maxamed Professor ummadda Soomaaliyeed oo maaragtay wadanka ama aqoonta ku leh xataa dad kale oo xataa howrarsame ahayn oo soo dalbaday waa arkay runtii. laakiin waxay ka go'daa beesha howrarsame talada ka go'daa waxaa weeye howrarsame shanta qaaradood hambalyadoodii waa dhageystay waana ku soo hambalyeeyeen. Professor Maxamed Macalin Xasan oo u taagan xilka xildhibaannimo dawladda cusub oo dhankiisa la hadlay boqolaalkii dadweyne ee ku soo dhaweeyay magaalada Kismaayo ayaa wuxuu u ballan qaaday haddii uu ku guuleysto xilkaasi inuu wax badan ka qaban doono deegaanada uu ka soo jeedo xildhibaanku. أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن سلام يا دمان دتك سوماليات نجوسو دويي نجرون كديار ذها مقالة كسمايو عاصمة جبلان. runtii waxay ahayd arrin aad iyo aad noo farax gelisay soo dhaweynta ballaaran qaybaha kala duwan ee bulshada ay soo dhaweeyeen. waxaan u celinaynaa mahad aad iyo aad u ballaaran walaalihiina soo dhaweeyay ee reer Jubbaland oo waliba si gaar ah beeshii aan ka dhashay ay si aad iyo aad u horkacaysay ka timid gaar ahaan gobolka Gada iyo Jubbaland guud ahaan. waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar hore iyo mar dambaba. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhammaan ka qaybgalayaasha oo ay ka mid yihiin bahda saxaafadda ay ka mid yihiin sidoo kale salaadiinta guud ee beesha nabadoonnada iyo culimaa udiinka iyo dhalinyarada iyo gabdhaha iyo ururada haweenka iyo waliba ururka dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa soo dhaweynta ballaaran ee ay noo sameeyeen. iyo awalan waxay ahayd inaan ka bilaabo xildhibaanada oo ayagana si diiran noo soo dhaweeyay xildhibaanada Jubbaland oo uu ka mid yahay horkacaya xildhibaan Shucayb Ibrahim Faarax Colow. aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa dhammaan. intaa kadib aniga waa walaalkiin
sheekh maxamed professor sheekh maxamed macalin xasan oo u taagan xilka musharaxnimada xildhibaanimada dowladda dhexe ee Soomaaliya laguna agaasimaya caasimadda Jubbaland ee hadda aan u nimid in lagu agaasimo alla soo xulo xildhibaanada arinteeda runtii aad baan ugu faraxsanahay arintaas aan u taaganahay bulshooyinka marka waxaan u sheegayaa in hadduu rabbi subxaanahu wa tacaala uu idmo ee aan ku guulaysanna arrinta hadda aan u istaagnay in aan ku horkici doona jawi wanaagsan ee ay ka mid tahay arrimaha nabadgelyada inaan ka shaqayn doono sidoo kale waxaan ka shaqayn doonaa rabbi subxaanahu wa tacaala hadduu ogolaado arrimaha waxbarashada horumarinteeda iyo sidoo kale dib u heshiisiinta iyo nabadgelyada waxaan marka ballan qaadayaa rabbi subxaanahu wa tacaala hadduu fursad ii siiyo arrintan dadka inaan ku maamuli doona arrintaani ay qusayso reer Jubbaland gaar ahaan iyo guud ahaan Soomaaliyaba wixii iga aadan si cadaalad iyo sinaan iyo waayo aragnimo iyo howlkarnimo leh inaan ku horkici doono anigoo ilaahay subxaanahu wa tacaala ula dhawaanaya arrintaas ugu dhawaan doono ikhlaas iyo daacadnimo ka muujinaya waxaa kale oo runtii aad iyo aad aan rabaa inaan u caddeeyo halkan ka caddaynaya xilkaani aan u soo istaagay hanqaltaag iyo rabitaan kuma imaanin waxaan ku imid mushaawaraad bulshada ballaaran ee maanta hor taagan iga yimid dal iyo dibadba waxgaradka iyo aqoon-yahanada iyo ummadda qaybaheeda kala duwan mushaawaraad ballaaran oo iga yimid waana xildhibaankii ugu horeeyay boqolaal dadweyne ee si diiran ugu soo dhaweeyaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo tan iyo intii ay ku soo qulqulayeen musharaxiinta u taagan xilka xildhibaannimo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose Cabdi Qadar Imaan Dhaqane Hon Cable TV magaalada Kismaayo.